bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka janaalkeena xogta dalka qodobada warkeena aad ku daawan doontaana waxaa ka mid noqon doona xaalada doorashada oo markan cakirnaan gooni ah galayso iyo maamulka galmudug oo eedeyntii ugu dambeysay loo jeedinayay Itoobiya iyo wararkii ugu dambeeyay ee Kenya ayaan daawadayaal warkeena idinkugu soo gudbin doonaa haddaba daawada haddii aad warka janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar oo like share garay commentigaagana waa noo muhiim aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya ee warka janaalkeena xogta dalka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa markan waxaa loo jeedinayaa eedeyntii ugu xooganeyd oo ku aadan xaaladda guud ee waqtiga kan ka jirta deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftigareen ayaa waxaa lagu eedeynayaa in waqtiga kan uu boobkii ugu dambeeyay uu ka wada qaybo kamid ah deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya wararka ka imaanaya deegaanada koonfur galbeed ayaa waxay sheegayaan in xaaladda siyaasadeed ee waqtiga kan koonfur galbeed ka jirta ay tahay mid aad u adag iyadoona Professor Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari oo hadda uu diyaarsanayo ciidamadii ugu badnaa taasi oo noqon karto mid xaalad kale oo cakiran waqtigan ka geli karta deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya doorashooyinka ka jira ayaa waxay yihiin kuwa aad dhibaatooyin ay kaga jiraan iyadoona maamulka koonfur galbeed Soomaaliya mas'uuliyiintooda ay hadda ay sheegayaan in talaabo kasta ay qaadayaan ay noqonayso sidii ay kaga fikiri lahaayeen xaalad kasta oo jirto inkastoo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ay si cad u sheegeen inay wax waliba ay muhiim u tahay isla markaana ay ka gudbi doonaan tani ayaana ka dhigan saameynada ugu badan ee doorashada waqtiga kan ka jirta qaybo kamid ah deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya balse dadka indhadhe siyaasadda Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in doorashada koonfur galbeed ay noqon karto mid dhiig fara badan uu ku daadan karo xilli horey loo tilmaamay in xiritaankii Mukhtaar Roobow deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo ay dhiig fara badan ay ku daateen haddana waxaa laga cabsi qabaa in dhiig badan uu ku daato magaaladaasi waxaa maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ay horey u sheegeen mas'uuliyiintooda in cid kasta oo ka soo horjeeda doorashada ay talaabo cad ay ka qaadi doonaan tani ayaana ka dhigan in saameynta doorashada ay noqon karto mid maalinta ka dambeysa kirnaan gooni ah galayso inkastoo Maxamed Mursal Sheekh Abdiraxmaan isna qudhiisa uu waqtiga kan uu yahay mid kursigiisa si fudud ku helaya tanina waxay u muuqataa in saameynta doorashada ay noqon karto mid talaabooyin muhiim u ah bulshada qeybaheeda kala duwan hase ahaatee qof walba ayaa waxa ay ilka ku haysaa wax waliba sida loo isku bedeli karo iyo go'aan walba oo la qaadan karo waqtiga kan xaadirka ee ku aadan arrimaha doorashooyinka deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya maamulka koonfur galbeed Soomaaliya madaxweynahooda Cabdicasiis Laftigareen ayaa waxa uu yahay shakhsi hadda filo Soomaaliya qarashkii ugu badnaa ka qaatay isagoona doonayay in cid kasta oo ka soo horjeeda maamulka farmaajo gebi ahaanba uu cagta uu ku dhifto taasi oo noqotay saameynta kale ee doorashada ay ku aadan doorashada Soomaaliya ayaa hadda boob fara badan waxaa wada filo Soomaaliya ayaana waxay doonaysaa kaliya in shakhsiyaad iyaga taageersan ay soo baxaan taasi ayaana u muuqan karta in ay saameynta doorashada ay noqon karto mid aad saameyn badan ugu yeelan karto walow qof walba ay la socoto xaaladda guud ee dalka iyo sidii go'aan walba ay kaga qaadan lahaayeen arrin kasta oo ku aadan arrimaha doorashooyinka balse qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ayaa waxay saacad u tilmaameen in ay markasto loo baahan yahay in laga shaqeeyo danta guud ee shacabka waxaana horey midowga musharaxiinta ay walaac kaga muujiyeen arrimaha doorashooyinka iyadoona Xasan Cali Kheyre uu kaliya uu yahay midka waqtiga kale la safan filo Soomaaliya iyo Shariif Sheekh Axmed taasi ayaa sidoo kale waxay u muuqataa in ay midowga musharaxiinta burburkii ugu xooganaa waqtiga kan uu soo gaarayo waxaana qof walba ay eegaysaa sida ay wax waliba isku bedeli karaan hase ahaatee uma muuqanayso qaabka wax walba isku bedelayaan iyadoona qof walba ay ilgaar ah ku hayso siyaasadda Soomaaliya iyo sida ay isku bedeli karto inkastoo horey qaybo kamid ah midowga musharaxiinta ay u sheegeen in ay ka soo horjeedaan doorashada haddana qaar kamid ah ayaa waxay noqdeen kuwa si cad u taageeray arrimaha doorashooyinka tani ayaana maalinta ka dambeysa waxay noqonaysaa mid saameyntii ugu xooganeed ay ku yeelanayso midowga musharaxiinta ayaa hore waxay u tilmaameen in rajo kasta oo ay leeyihiin ay noqonayso sidii talaabooyin ku aadan arrimaha doorashooyinka iyo guulo ay ku gaari lahaayeen isla markaana tallaabo kasta ay ka dhigi lahaayeen kuwa horumar ballaaran ka gaara hase ahaatee qof walba ayaa waxa ay si gaar ah u taxliilinaysa arrimaha doorashooyinka iyo xaaladaha kala duwan ee waqtiga kan jira waxaana hadda u muuqanaysaa in Muqdisho ay marka lacagaha ay la geli doonto in uu dhiig badan uu ku daato waxaana ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble lagu eedeynaya in uu waqtiga kan uu yahay mid gacmaha ka laabtay doorashada isla markaana taasi ay noqonayso mid ay aad saameyn badan ugu yeelanayso Maxamed Xuseen Rooble oo eedeyntii ugu dambeysay waqtiga kan ee u jeedinayaan
geesta kale qaramada midoobay ayaa wax waliba kor ka eegayso iyadoo kursiga uu ku soo baxay Yaasiin Faray hadda eedeyntii ugu xooganeed loo jeedinayo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari qoorqoor oo hadda ah shakhsi lacag fara badan iyo sidoo kale lama fara badan la galay farmaajo ayaa waxaa hadda u muuqdaa in uu hadda boob uu ku hayo kuraasta qaybo ka mid ah isagoona kuraasta ugu badan uu qaatay taasi ayaana waxay ka dhigan tahay in doorashada Soomaaliya maalinta ka dambeysa ay u muuqato mid saameyn kala duwan yeelanaysa inkastoo qof waliba ay gaar ah ay ku hayso wax waliba sidii la isku bedeli karo iyo go'aan walba oo la qaadan karo iyo arrin kasto sidii ay tallaabooyin muhiim ah u qaadi lahaayeen qaybaha kala duwan ee bulshada qaybo kamid ah deegaanada Galmudug xilli dhinaca kale ahlu sunna ay culays ay ka soo saaraysa waqtiga kan maamulka Galmudug oo hogaamiyo Axmed Cabdi Kaari qoorqoor ayaa cabashadii ugu xooganaa waqtiga kan uu ka muujinaya ahlu sunna wal jameeca iyo xilli ah baruursigii ugu dambeysay ahlu sunna ay wado taasina ay noqon karto saameynta kale ee markan Axmed Cabdi Kaari qoorqoor ay ku yeelan karto arrimaha doorashooyinka kuraasta qaybaheeda kala duwan ayaa waxaa si gaar ah loo sheegayaa in Axmed Cabdi Kaari qoorqoor shakhsiyaad kala duwan oo taageersan farmaajo uu ku soo saarayo taasi oo noqotay cambaareynta ugu xoogan ee waqtiga kan loo jeedinayo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari qoorqoor Master qoorqoor oo ah shakhsi si weyn ugu xiran fila Soomaaliya ayaa waxa uu yahay mid mar walba fila Soomaaliya waxay ku qanacsan tahay sameynaya taasi ayaana ka dhigan xaaladaha kala duwan ee waqtiga kan Galmudug ay galayso mid saameyn badan dhalinaysa tani ayaana ka dhigan in go'aan walba uu saameyn yeelan karo isla markaana qof waliba uu aad u hadalka hayn karo xaaladda guud ee waqtiga kan doorashooyinka geesta kale madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa taagan oo si gaar ah uga soo horjeedo doorashada qaabka ay ku socoto sheegayna in ciidankii ugu badnaa ee waqtiga kan ay diyaarsanayaan isla markaana ay ka soo horjeedaan boob kasta oo kuraasta lagu sameynayo isla markaana cid kasta oo isku dayda inay boob ku sameysto kuraasta qaybo kamid ah deegaanada Puntland iyo Jubbaland ay talaabo cad ay ka qaadi doonaan haba ugu darnaatee Axmed Madoobe go'aanka uu qaatay oo sheegay in doorashada kaliya lagu qaban doono magaalada Kismaayo taasi oo tiimka farmaajo saameyn iyo culays weyn ay waqtiga kan ay kala kulmi karaan maamulka uu hogaamiyo Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe si la mid ah Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu gibi ahaan xilka qaadis uu ku sameeyay qaybaha kala duwan ee sida gaarka ah ugu xiran fila Soomaaliya isla markaana si cad u tilmaamay in uusan marnaba u dulqaadanaynin cid kasta oo fila Soomaaliya taageerto in ay ku sugnaan doonto deegaanada Puntland taasi oo walwal siyaasadeed oo aad u xoogan ku dhex abuurtay dadka qaybo kamid ah deegaanada Puntland ayaa waxaa hadda cabsida ugu xoogan ee ka jirta ay u muuqanaysaa in madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu talaabooyin waaweyn oo qaadayo oo ku aadan sidii isbedel kasto isaga oo doonayo ay ugu dhici karto qaybo kamid ah deegaanadaasi walow dadka shacabka ah ee baqdantii ugu xooganeyd ay waqtiga kan ay ka muujinayaan maadaama adeega uu hadda ula soo baxay madaxweynaha maamulka Puntland ahna musharax madaxweyne ayaa wax u muuqan kartaa in saameyn badan ay ku yeelan karto qaybaha kala duwan ee bulshada ugu dambeyntiina wadanka Kenya waxaa lagu soo waramayaa in ganacsato fara badan oo Soomaali ah lagu xirxiray iyadoo dowladda Kenya ganacsatadaasi Soomaalida ah ay waqtiga kan ay ku eedeynayso inay shabaab ay ka mid yihiin taasi oo ay aad ugu xumaadeen shacabka ku nool wadanka Kenya bilihii ugu dambeeyay dowladda Kenya ayaa waxay waday cadaadis xoogan ee ganacsatada Soomaalida ah ee ku saareysay qaybo kamid ah gudaha wadankaasi taasi oo noqotay saameynta ugu badan ee waqtiga kan ka jirta qaybo kamid ah wadankaasi Kenya dadka shacabka ah ee Kenya ayaa waxa ay hore u tilmaameen in Soomaalida loo baahan yahay in gabi ahaanba laga saaro dalkooda tanina waxay noqotay arrimaha cakiran ee waqtiga kan goonida ah ka jira gudaha wadankaasi maadaama hore madaxweynaha wadanka Kenya Mr Uhuru Kenyatta uu ku baaqay in Soomaalida ku nool wadankiisa gibi ahaanba uu ka saari doono iyadoona qaramada midoobay hore uga digtay in uu hadii uu isku dayay inuu Soomaalida dhibaateeyo cawaaqib xumo oo la kulmi doono madaxweynaha maamulka waa madaxweynaha wadanka Kenya guud ahaan saaxiibada aan jecelahay warkii dunida oo aad ka daawanayseen janaalkeena xogta dalka saaxiibayaal waan naga inta hadaba daawada hadii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar oo like share garee commentigaagana waa noo muhiim aad ku maasantahay daawashada warka janaalkeena xogta dalka